دولة إثيوبيا كم مرة بنادي هذا أنا كنا كم مرة بنالنا إثيوبيا وحن لنا هاي دم عقل كان قاد وصنا يا كإماو ما أنت أتكلم ماو وحكي صهر الله كوال هلا وأنا كيشينينا الدنيا ده بني آدم تبع عذا إلهي الله أبوري وحكمنا هنا صح بالرس صبحي دولة إثيوبيا دي ترى سو ما نمتينها رالي وين ده ممكن وكاسة بل نلا الله صبح دبوا الله هلا لكن كم مرة بيلانا دولة إثيوبيا كم مرة بنادي هذا أنا كنا كم مرة بنالنا محانا قباسا وردل كان صوماليا ليرا أولو تبشوين قبي أو ضل يضد إني كم مقيهين أو سشر الدراح لوجا قاتي آمن سنايين ما أنت حق أنت كسورتي أنت سوارتان هذا نقار قوسنايا ممكن يران ملك وأباري وآرن ملك وبرئي وبرملو إلى شذو حول ملك وبطئي وبري ملك أنجا إسكالي dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waa inay ogaadaan dadka iyo waxyaabaha qaarkood dadka noocaas iyo hay'adahaas iyo dawladahaas waxa maxay sameynayaan wax kasto wanaag oo leenahay way xumeynayaan halku markuu wuxuu ku jiraa aniga walaalkayga Soomaaliga inuu iga cararin oo inta iga cararo oo na magan gelin kale ninkala oo waliba uu og yahay inuu labadeedaba cadow loo wada yahay laakiin isaga markaas inuu isticmaalo rabo isagii waa soo cararay uu hayaa kow ka soo cararay inuu isticmaalo labadeedaba si aan daciif u wada noqono oo aan asaga u wada xirnaan u wada baan taariikhdaas waa caam ma tirinayno waa koow lama saddex khibrad badan u leenahay adduunyada bini aadamku dabeecadaha ilaahay uu la abuuray waxa kamid ah inaa sax marka aad talaab qaado nimay la xuntahay aanay la qurxanayn marka aad si fiican u soo libisato oo xaragoonayso qof aanay la fiicnayn oo aan jeclaalahay sida ay u libisantahay si ka hooseyso ila u libisantahay qofnimadaas iyo mugdi ka soo baxaas daday dhibay Soomaaliya ka soo baxday mugdigii dhibaatadii oo u soo baxaysay iftiinkii oo alla ilaahay maxaan ku raa soo gaartay meel ay soo muuqato wanaageedii soo gaartay daday dhibay shakhsiyaday dhibay hay'aday dhibay dawladay dhibay dadka Soomaaliyeed horta inay saas u fahmaan waay shakhsiyaad ay dhibay oo ah rafaadka iyo dhibka iyo amni darrada iyo kala qaxa iyo kala orodka maslaxa ku qabay ayaa maslaxadii weynaay way dhibay Soomaaliya horumarta way dhibay hay'adaha dib ku qabo oo masaa'ibkaas ka dhax shaqeyn jiray oo inta aan wax geynaa iyo xaggan dhisnaa iyo intaan ka waxaynaa dhigi jiray oo lacag ku qaadan jiray ayaa waa ka baxday hay'ado dawladeed ay yimid meeshii way dhibay dalalay dhibay sidaasoo kale Soomaaliya annaga wakiilka ah annaga wax u og annaga hayno annaga ka dhacno dhihi jiray ayay dhibay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waa inay ogaadaan dadka iyo waxyaabaha qaarkood dadka noocaas iyo hay'adahaas iyo dawladahaas waxa maxay sameynayaan wax kasto wanaag oo leenahay way xumeynayaan wax kasto wanaag oo leenahay way xumeynayaan horumar kasto oo aan sameeyno way dafirayaan marmarka qaarkood waxay leeyihiin kuwa waa soo baxeen bas waa wuxuu waa qaadan rabaan intaanay qaadanin cad ka gooso wax ka qaado waxyaabaha socdo oo aad arkaysaan oo kuwa noo dhow diris nala ay kuwa naga fog intaba ay sameynayaan xigmadda ay ku sameeyeen waa intaas dadka Soomaaliyeed iyo dawladda caalamka ka mid yihiin xeerarka caalamiga adduunyada jira ay ku dhaqmaan oo dhaqo ay aqbalsan yihiin ka wada midaanahay annaga iyo adinkaba ixtiraama xeerarka caalamiga ixtiraama markaas annaga adinka aad ixtiraamayna hadda xeerarka caalamiga ixtiraam waysan annaga ixtiraamayna nagama mudaanaysin 16 wadan mise 17 wadan oo qaaradda Afrika ku yaal ayaan bad lahayn
haddana badeecadoodu dhan baday ka soo degtaa waxay dhoofinayaan oo dhanna baday ka dhoofiyaan dalalka dariska la ah ee badda ka xiga ayay la leeyihiin dhulkooda ma haweystaan qaaraan ka goosanaynaa ma dhahaan Ethiopia waxaan leenahay damaca dhulkan qaar goosanaya ka imaaw maalintaad ka timaado waxa ka soo haro dhan waa ka wada hadlaynaa waana ka heshiinaynaa inaan ka heshiinaynaa waa